yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada Soomaaliland haddana madaxweynuhu u magacaabay wasaaradda umuuraha dibadda Soomaaliland xilka madaxweynuhu ku magacaabay horta sideed u aragtaa xilka madaxweynuhu ii magacaabay waa runtii raali baan ka ahay madaxweynuhu waa ii yeedhay waa itirageliyay wuu ii sheegay inuu xilka ii magacaabayo oo uu arko in loo baahan yahay inaan jagada qabto aniguna sida madaxweynaha waan ka ogolaaday raali baan ku noqday waana ila muuqatay taladiisa inaan raaco aan hawsha halka ka wada gal Soomaaliland intii ay jirtay caalamka aqoonsi kama helin in arintaas oo dadka Soomaaliland si weyn u sugayaan adiga maxaa kaaga qorshaysan halgankii horeba loo waday loo halgamayay Soomaaliland sida i'tiraaf iyo aqoonsi ay xaq u leedahay ay hesho inaan kii un halgankii halkii ka sii wado raggii iga horeeyayna waxaan qabaa inay hawsha wax weyn ka qabteen rag badan baa u kala dambeeyay ilaa wasiirkan u dambeeyay oo aanu arko inuu hawl weyn ka qabtay hawsha iyada ah ana dadaalkii baan halkii ka sii wadaya intaas baan ila gudboon intaan u arko wax kale oo aanu hadeer oran kara dad baa si u leh arrimaha dibadda talooyin aqoontiisi ma aha ama dhinaca kuma wanaagsana maxaad ka oran leeyahay waxba ka jiri kara anigu runtii kama aan shaqayn arrimaha dibadda imika ka hor inkastoo aan dee joogay Soomaaliland min awal ilaa aakhir mar walba dee waan dadaalaya waa dadaalun baa aniga ila gudboon wixii aan garan waado maxay ahayd mahmaahda ilaa walba taana hay ugu cadaabi ee xalay iga tegay wixii awoodayda waan isku dayayaa khasab ma aha in iskuul looga soo baxo iyo in bahalkii loo qaato qof baa talent isaga yeelan karo hiba isaga yeelan kara inuu arrimaha qaarkood ka shaqeeyo marka anigu hadeerto isma qiimeyn karo iskumana qiyaasi karo wasiir imika mantaqada geeska arinta ka socota waad ogtahay Soomaaliya Itoobiya Eritrea kulamadoodii Soomaaliland waxa la yiraahdaa madaxweynuhu ilaa haddana ra'iisul wasaarihii Itoobiya lama kulmin arrimaha ka socda mantaqada maxaa kaaga qorshaysan maalin walba raadkii ay qaado inaan la socono maalin walba wixii naga gudboon markaa nala soo dirsa inaan wixii ay nala ahayd ka yeelo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu inay is arki waayaan ilaa imankana wax ma aha curshiyo oo hadeer aanu ognahay oo dhibaato ah oo hortaagan ma jiraan waa un waqti iyo ballan iyo hawlo badan oo taagan oo dhinac walba jira inta ay dhamaysanayaan ballankuna waa jira iyo inay sarkaanna waa u qorshaysan tahay taasuna waa tanna waanu la soconaynaa xaaladda waanu leeyahay in isbedeladaas umaanu daanana qayb ka midnahay oo la soconaynaa ugu dambeyntii magacawgaagu muxuu uga dhigan yahay gobolada bariga oo in badan dabcan cabasho si u caban jiray wallahi taa ma sheegi karo bal dadka bariga ayay tahay mala su'aasha in la weydiiyo anigu hadeerto sida ay u arkaan iyo waxa dareenka ay ku dhali karto iyo wax waliba waan maqlay dad badan oo qaar way la soo hadlayeen qaar social media wax ka oranaya waan arkayay laakiin inta ay la eg tahay iyo xaqiiqadeeda iyo waxba aanu kama sheegi karo iyaga hal la weydiiyo Batri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa